uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ayaa maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. wafdigan ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Baay iyo kan degmada Baydhabo, saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM iyo waliba ururada haweenka. soo dhaweynta gudoomiyaha baarlamaanka kadib ayaa waxaa loo soo galbiyay xarunta taliska halkaas oo uu kulamo kula qaatay dadkii soo dhaweeyay. Mudane Jawaari ayaa waxa uu sheegay in ay isku tashadaan ummadda Koonfur Galbeed Abshir Mohamed Noor Mandela, Royal TV, Baydhabo.